السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta la wadaagi doonaa 10 dowladood oo haddii aad wax ku baratid ku damaanad qaadaya dalkaas inaad sii joogtid. waxaan filayaa in arrinkani ay si gaar ah muhiim ugu tahay ardada Soomaaliyeed ee la daala dhacay run ahaantii marka ay dalka wax ku bartaan Soomaaliya weeye in ay dhacdo inaysan shaqo helin. haddaba 10 dowladood ee aan la wadaagi doono waxay muhiim u tahay dadka noocaas ahi in ay isla marka ay waxbarashada dhameeyaan inay laba mid heli doonaan. midda koowaad inay fursad u heli doonaan dalkaas inay ka shaqaystaan oo iyagu wixii ay yaqaaneen ay shaqaale ku noqdaan isla markaana mushaar ay ku helaan. ama haddii qofku yahay qof innovation leh, hal abuur leh, fikrado leh, mashaariic dalkaas uu ka bilaabi doono, taasoo meesha ka saaraysa sida dalka aan ku naqaanay caalamka marka uu ardaygu dalkaas wax ku barto isla markaana dalkaas uu soo dhalan in laga soo celiyo. kulanti wanaagsan, magacaygu waa Saadiq Sheekh Maxamed. haddii booqashadaadii koowaad ee bartan ay tahay fadlan nagu soo biir. haddaba inta aynan 10 dowladood aynan u gudbin ayaa heerka shaqo la'aan ee ardayda jaamacadaha ka baxa gaar ahaan dowladaha carabtu ay gaadhay 28% iyadoo la sheegay shaqo abuurka dowladaha carabtu inay u baahan yihiin 30 sano ee soo socota in ka badan 60 milyuun oo shaqo, taasoo ku muujinaysa heerka shaqo la'aanta ee run ahaantii la kowsatay ama ku habsatay ardayda Carabeed oo marka Afrika aan ka reebno. hase yeeshee taa beddelkeeda ayaa celceliska shaqaalaysiinta ardayda cusub ee jaamacadaha dowladaha reer Yurub ka baxa ee da'doodu ay u dhaxayso 20 sano ilaa 40 sano ayaa tiradoodu ay dhaafaysaa 83.5% marka loo eego xafiiska tirakoobka midowga Yurub warbixin uu soo saaray sanadkii 2023. dhinaca kale tirada la diiwaan geliyay ee ardayda dhamaysatay tacliinta sare ee dalalka midowga Yurub ayaa ah kuwo celcelis ahaan kuwa dunida ugu badan ee ardayda la shaqaaleysiiyo. bimacnaa ardayda markii ay jaamacadaha ka baxaan ardayda dunida ugu badan ee la shaqaaleysiiyo waa ardayda dowladaha reer Yurub u dhashay, iyagoo guud ahaan ardaydaasi noqday dunida kuwa looga ilaalin badan yahay inay shaqo la'aantu ku dhacdo marka loo eego dadka iyaga ahaan mustawahooda tacliimiga ama heerkooda waxbarasho ka hooseeya. halka isla sanadkaas ardayda cusub ee waxbarashada dhamaysatay ee la shaqaaleysiiyey ma aha kuwa shaqo la'aanta ay ku dhacday, ma aha, waa kuwa shaqada la geeyey si rasmi ah loo geeyey in tiradoodu ay dhaaftay 90%, gaar ahaan weliba dowladahan soo socda ee kala ah Ireland, Australia, Belgium, Sweden, Slovakia, Poland, Jarmalka, Latvia, Bulgaria, Hungary, Holland, Malta iyo Estonia. dowladahaasi ardada dalkooda ee waxbaratay ayaa isla markii waxbarashada ay dhameeyeen ayaa 90% ay gaadhay tirada arday ee la shaqaaleysiiyey. taana waxaad ku fahmaysaa heerka ay gaadhay sida ardadaas ay run ahaantii u yihiin kuwa dalka markii ay waxbarteen dib ugu soo celiyay isla markaana iyagoo noloshoodii maareeyay. haddaba kala duwanaanshiyahaas walaalayaal aan soo xusnay awgood ayaa arday badan oo dalalka Afrika iyo Carabaha ka soo jeeda ay u doonayaan inay waxbarashadooda ku dhamaystaan dowladaha siinaya fursado shaqo oo dhab ah si ay dalkaas ugu noolaadaan marka ay waxbarashadooda dhameeyaan kadib. sidaa darteed ayaa waxaan rabaa inaan 10 dowladood idinku soo bandhigo si ardayda Soomaaliyeed ee ay ka guuxi jirtay inay dalalkaas aadaan ama ku fikiri jiray inay raadiyaan dal ay wax ku bartaan kadibna ay sii joogaan ay uga faa'iideystaan. haddaba dowladda ugu horeysa waxay tahay waa dalka Canada. muddada joogitaanka ee dalka Canada waa 3 sano, balse shardiga barnaamijka waxbarasho ee la rabo inuu dhigto qofkaasi si uu u sii joogo dalkaas ayaa waxay tahay waqtiga ugu yar 8 bilood. 8 bilood meesha aad wax ku baranaysid jaamacad ha ahaato ama ha ahaato macahad ha ahaado ama ha ahaado goob kale, waa inay tahay goobta waxbarasho mid dalka Canada uu aqoonsan yahay. taasi waa maxay? waa habka dalka Canada ay kugu suurtagelayso inaad sii joogtid waa haddii aad tahay qof arday wax bartay. markaad eegtid waxaad moodaa arrin aad u fudud inuu yahay waa 8 bilood. taasi waa maxay? waa dhinaca fursadda ee waxbarasho ee haddii aad wax baratid dalka Canada aad ku joogi kartid. dhinaca kale markaan eegno fursadaha shaqo ee dalka Canada laga helo ayaa wuxuu yahay in si fudud ay u furan tahay qofka dalka Canada jooga inuu fursad u helo jinsiyadu doona ha yeesho. midda labaad waxay tahay qofka waxaa lagu doortaa markii la shaqaaleysiinayo hadba qofku waxa uu yaqaano
iyadoo taasi ay ku lamaansan tahay barnaamijyo ku dhiirigelinaya dadka soo galootiga ahi ee xirfadaha leh inay dalka yimaadaan. taa waxaa meesha ay ka saaraysaa ardayda ama dhalinyarada Soomaaliyeed inay dhoofaan ay madaxa martay in haddii dalalka kale aad rabtid in laga aqbalo ama aad joogtid waxaa laga rabaa ay tahay inaad tahay qof xirfad leh ama aqoon leh. waayo dalkan wuxuu ka fikirayaa qofkan aniga dalkayga imanaya ama joogaya muxuu dalkayga kusoo biirinaya. taasi waxay meesha ka saaraysaa marka qof dheeraad dalka ku ah cidina uma baahna waxaa doontid ahow. midda saddexaad waxay tahay dalka Canada wuxuu gaar ku yahay ayaa waxaa ka mid ah inaad codsan karto inaad dalka joogto adigoo sheeganaya xirfad shaqo laakiin dalka wax ku ool ku ah. halka waxaan uga baxayaa dalka Canada. dalka labaad wuxuu yahay 10 dowladood ka mid ah waa dalka Australia. waa taqaanaan idinka sheekeyn mayo balse muddada joogitaankeedu waa 2 sano ilaa 3 sano. haddaba waxyaalaha xaq u yeelanayo ardayga dalkaas wax ku barta ma aha qof iska tagayo iska joogo tahriiba ama kama hadlayo qof kama hadlayo ee qaxooti qortay ayankan waxyaalaha kama hadlayo. waxaan ka hadlayaa qofka dalkaas wax ku bartay sifadu doonaha yeesho. marka wuxuu xaq u yeelanayaa qofkaasi marka koobaad inuu dalka ku noolaado inuu ka shaqeeyo dalkaas markii uu wax barto isagoo sii maraya barnaamijka la magac baxay course of work after studying. waa barnaamij la isla yaqaano oo ah Soomaali ahaan wadiiqada shaqo ee waxbarashada kadib ayuu qofku u marayaa nidaamkaas u marayaa kadibna maxaa u suurtagelaysa inuu shaqo helo shaqadaasina ay u suurtagelaysa dalka inuu sii joogo. taasi waa midda labaad. muddada ay tahay qofku uu dalkaas joogo way kala duwan tahay waxayna ku kala duwan tahay marka loo eego heerka waxbarasho ee la fili karo inuu qofku heli karo marka uu waxbarashada dhameeyo kadib. iyadoo fiisaha dalka Australia qiimihiisu uu yahay lacag dhan $2,235. dhinacaasi waa fursadii aad dalka Australia ku joogi lahayd. fursadaha ka banaan dalka Australia markaan ka hadalo marka koowaad waa kuwa xoogan sida kuwa la xiriira caafimaadka, engineerinka iyo teknolojiyadda. haddii saddexdaas aad ku fiican tahay waa orod inaad shaqo ka hesho dalka Australia. iyagoo jaamacaduhu sidoo kale ay qeyb ay ka qaataan taageerida ardayda. bimacnaa markii ardaygu uu dalka Australia wax ku barto ardaydii jaamacadiiba waxay ku taageeraysaa ama ay garab ugu siinaysaa ardaygii sidii uu shaqo ku heli lahaa. taasoo ah bay ku leeyihiin in shaqooyinka lagu soo bandhigo baraha bulshada. waa ogtihiin shaqooyinka qaar baraha bulshada lagu soo bandhigaa laakiin inagu keer ma siino. iyo sidoo kale baraha lagu yaqaano in shaqooyinka lagu soo xayeysiiyo. taasi waa fursadaha shaqo ee dalka Australia qofku uu ka heli karo iyo habku uu heli karo. waxaa kaloo fudud in gobolada dalka Australia weeye qofku uu kala goosho waxa la yiraahdo almuwaasalaad ama transportationka ee dalka gudihiisa isu gooshitaankeedu waa mid fudud taasoo kuu suurtagelinaysa inaad magaalooyin kala duwan ka shaqaysato. taana waxaan uga baxayaa dalka Australia waana dalka labaad. dalka saddexaad wuxuu yahay 10 dowladood ka mid ah waa dalka New Zealand. muddada joogitaanka dalka New Zealand waa 3 sano. fursadaha marka aad ka heli kartid ee dalkaas ku keeni kara inaad sii joogtid ayaa waxay tahay inaad gudbisato fiisaha shaqo waxbarashada kadib. markii waxbarashadaas aad dhamaynayso ayaa waxaa laga rabaa inaad gudbisato inaad hesho fiiso aad ku sahlaya inaad dalka ku sii joogto. taasna ay tahay inaad tahay qof shaqaynaya. haddaba shardiga laga rabo maxay tahay taa ku xiran kow waxay tahay inaad codsiga gudbisato inta lagu jiro 12 bilood ee ugu dambeeya ee fiisaha dalku joog ee ardaynimo. bimacnaa maadaama sifo sharci ah dalka aad ku joogtay oo ardaynimo ah ma aha wax kale waxaa laga rabaa fiisaha markii uu 1 sano ka dhiman yahay dhicitaankiisu inaad gudbisato fiisaha shaqo ee dalka aad ku sii joogi lahayd. iyadoo muddada lagu ogolaanayo inaad New Zealand sii joogto ay xadidayso marba waxa aad ku takhasustay. bimacnaa jaamacadaas aad ka baxday faculty-ga aad ka dhigatay ayaa waxay ku keenaysaa ama ay horseed u noqonaysaa ama ay xadidaysaa waqtiga xaqa aad u yeelanaysid ama lagu ogolaanayo ee dalka New Zealand aad sii joogaysid. taasi marka waxay ku iftiiminaysaa inaad faculty-yada kuu sahlaya muddo dheer inaad dalkaas sii joogto inaad marka hore sii doorato haddii fursadda waxbarasho ee dalka New Zealand aad hesho ama iska bixi ama scholarship ku helo waxaad doonto aad ku heshid. iyadoo fiisaha New Zealand uu yahay adduun lacageed oo dhan $1,670
taasi waa fursadihii muxuu ahay guud ee dalkaas aad ku joogi lahayd. dhinaca kale haddaba maxay yihiin fursadaha ka bannaan ee shaqo ee dalka New Zealand? ta koowaad horta waxaa weeye dhinaca waxbarashada. haddii jaamacad aad ka baxdid ama institution la aqoonsan yahay dalka New Zealand ku yaala, haddii aad ka baxdid, waxa koowaad ee si fudud aad ku helisid waxay tahay qaybta waxbarashada inaad ka shaqayn karto. midda labaadna waxay tahay kalkaalisanimada. midda saddexaadna waxaa weeye xirfadaha gacanta. waa bad xirfad gacmeed haddaad leedahay orod baad ku helaysaa. taasina waa qodobka saddexaad. sidoo kale waxaa fudud soo gelitaanka dalka New Zealand, ayna sahlan tahay inaad hesho sidoo kale fiisaheeda dalku gal, adoo fiisaha markii aad timaadid aad u bedelan kartid mid muddo dheer aad kusii joogi kartid. halkana waxaan uga baxayaa dalkii saddexaad ee New Zealand.